لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كان نولين في إسلامك. waxaan marka hore idin xasuusinayaa in asaasaha jamaacada Axmadiya Xadrad Mirza Qulaam Axmed calayhi salaam ku dooday inuu yahay mahdi magac ahaana nabi ciise qof ahaan ma aha. waxaan ka soo hadalnay calaamadaha lagu garan karo in Mirza Qulaam Axmed calayhi salaam uu yahay mahdigii runta ahaa oo ay ka mid ahaayeen in la amaani jiray intii aan oran mahdi ayaan ahay. markii uu yiri mahdi baan ahayna xumaan iyo cay loogu bedelay, markii dambana lala dagaalamay, iyo in alle u ballan qaaday inuu dacwadiisa meel walba gaarsiiyo una hiilin doono. maanta Axmadiya waxay si rasmi ah uga dhisan tahay in ka badan 200 oo wadan. maalin walbana waa lagu soo biirayaa in alle waxa kaloo ka mid ahaa in alle u sheegi jiray waxa soo socda ama qaybka oo alle u sheegi jiray waxa dhici doona oo saadaalo badan oo uu yiri alle ayaa ii sheegay ay dhaceen oo ay dhaboobeen. qaar ka mid ahna aan idinku sheegay barnaamijkii hore. calaamadaha kale ee rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay in lagu garan karo marka uu yimaado mahdigu waxaa ka mid ah inuu dhaco bisha Ramadaan dayax madoobaad iyo qorax madoobaad. in ay labaduba dhacaan bisha Ramadaan isla markaana inta aanay dhicin uu jiro qof ku doodaya inuu yahay mahdi. barnaamijkan maanta waxaan kaga hadlaynaa calaamadan dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka oo ah mucjiso aad u weyn. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات والأرض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وينكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض. وحوي سنن دار قدني. معناه حديث كان وحوي mahdiga iyagu wuxuu leeyahay 2 aayadood oo aan hore u dhicin ilaa intii la abuuray samooyinka iyo dhulka. intii dunida la abuuray waa waxaan hore u dhicin.
wuxuu dayux madoobaan habeenka u horeeya ee ramadaan qoraxduna waxay madoobaan habeenka halkaan ku noqdo wuxuu dayuxu wuxuu madoobaan habeenka u horeeya ee ramadaan qoraxduna waxay madoobaan maalinta dhexe sida culimada falaga ama cilmiga xidigaha iyo cirka taqaana inoo sheegtay dayax madoobaadku wuxuu dhacaa bilaha hijriga ama bilaha carabiga ah marka dayuxu buuxsamo ahna 13-ka 14-ka iyo 15-ka xadiiskuna wuxuu leeyahay waa in uu dhaco habeenka hore oo ah 13-ka qorax madoobaadkuna wuxuu dhacaa bilaha hijriga maalmaha 27-ka 28-ka iyo 29-ka xadiiskuna wuxuu inoo sheegay in uu dhaco maalinta dhexe oo ah 28-ka haddii aad u fiirsato xadiiskan shuruudo badan ayaa ku jira si aanay isaga noqon dayax madoobaad iyo qorax madoobaad ma garanaysaa si caadi ah isaga dhacay shuruudaha maxaa ka mid ah marka u horeysa inuu jiro qof ku doodaya inuu yahay imaam mahdi inta aanay dhicin labadan calaamadood ee dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadku mahdiga oo ku doodaya in alle idmay una yimid ama alle u soo diray inuu diinta islaamka nooleeyo ka maydho wixii fahamxumo soo gashay dadkana ku hanuuniyo dariiqa toosan ta kale waa in dayax madoobaadku uu dhacaa habeenka u horeeya oo ah 13-ka waa suurtagal in dayax madoobaan karo 14-ka ama 15-ka laakiin xadiisku wuxuu noo sheegay in uu madoobaado habeenka hore ee marka bishu ay tahay 13 qorax madoobaadkuna maalinta dhexe ee ayaamaha ay madoobaan karto qoraxdu oo ah 27-ka 28-ka iyo 29-ka marka xadiisku wuxuu noo sheegay inay madoobaato maalinta dhexe oo ah 28-ka shuruudda kale waxaa weeye in dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka labaduba ay dhacaan bil ramadaan ah inaanay hore u dhicin sidan oo kale culimada waqtigaasi ay aaminsan yihiin yacni marka uu mahdigu yimaado culimada waqtigaasi waxay aaminsan yihiin xadiiskan bay aaminsan yihiin calaamadahan bay aaminsan yihiin marka waa inay ku xujeeyaan mahdiga oo ay yidhaahdaan haddii aad tahay mahdigii runta ahaa maya labada calaamadood ee ah muxuu ahaa dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadku labada calaamadood ee magaranaysa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inay markhaati u yihiin mahdiga maye waa in culimmadu markaa ay ku tidhi qofka ku doodaya inuu mahdi yahay u fiirso marka sida ay labadan calaamadood markhaati cad oo mucjizo ah ay ugu yihiin mirza qulaam axmed calayhi salaam inuu yahay mahdigii la sugayey wuxuu ku dooday mirza qulaam axmed calayhi salaam inuu yahay mahdi oo alla idmay 1891 waa intii aan la arag dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka toonna waxaa markiiba culimadii waqtigaas noolaa ay hordhigeen xadiiskan oo yidhaahdeen haddii aad tahay mahdigii waxaan kaa rabnaa labada calaamadood ee xadiisku inoo sheegay in dayaxa iyo qoraxduba bisha ramadaan ay madoobaadaan dayaxuna madoobaado bisha 13-keeda qoraxduna ay madoobaato bisha
sideed wuxuu ugu jawaabay Mirza Ghulam Ahmad alayhi salaam wadaadadii markaa muxuu ahaa weydiinayay calaamadii weydiinayay inay sugaan ilaa inta alle uu ka muujinayo sanadkii ku xigay 1892 iyo kii ka dambeeyay sanadkii ka dambeeyay 1893 midna may dhicin midna qorax madoobaad iyo dayax madoobaad ma dhicin 2 sanadood wadaadada maxay sameeyeen waxay meel walba gaarsiiyeen inuu beenaale yahay way calaamadii rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay ayaan dhicin markaa kadib waa sanadkii ku xigay weeyay 1894 ayaa labada calaamadoodba ay dhaceen buuxiyeyna dhammaan shuruudaha xadiiska la inoogu sheegay waxay dhaceen bil Ramadaan ah oo dayax madoobaaday bisha 13keeda qoraxda madoobaatay 28keeda labadan calaamadood waxaa laga arkay halka uu mahadigu joogay sanadku markuu ahaa 1894 oo ah wadanka India iyo wadamo far badan oo dhinaca bariga ah sanadkii ku xigay 1895 wuxuu ka dhacay dhinaca wadamada galbeedka isla bil Ramadaan iyo labadan uu ahaa habeenkan iyo maalintan rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in dayax madoobaado bisha 13keeda habeenka 13aad qoraxdu madoobaato bisha 28keeda بعدما مهديغو وكيلك يهي رسولكينا صلى الله عليه وسلم رسولكينا الله او soo diray caalamka oo dhan cid kasta waa in labada calaamadood laga arkaa adduunka oo dhan waana laga arkay sanadin sheegayna 1894 waxa laga arkay bariga 1895 tiina waxa laga arkay dhinaca galbeedka hadaa u fiirsato xigmad weyn ayaa ku jirta in alle markiiba aanu muujin in dayaxa iyo qoraxdu ay madoobaadaan xigmadaas oo ah culimmadan islahaa beeniya markaad dhanka eegto waxay fidinayeen in mahdigii yimid meel walba waxay gaarsiiyeen in Mirza Ghulam Ahmad alayhi salaam uu sheegtay in mahdi yahay laakiin labadii calaamadood ee rasuulku inoo sheegay ee xadiiska la inoogu sheegay aanay dhicin marka iyaga meel walba gaarsiiyay 3 sanadood ayay fidinayeen beentaas oo meel walba gaarsiiyeen kaalaya ninka le muxuu ahaa waxaan ahay mahdi sawtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam yiri waxa dhacay qorax madoobaad iyo dayax madoobaad marka meel walba way gaarsiiyeen iyagu waxay islahaayeen sortaaga laakiin way fidinayeen in mahdigu yimi alla sawa xakiim wuxuu muujiyay markay meel walba gaarsiiyeen 1894 oo uu laga arkay dhinaca bariga sanadkii ku xigayna 1895 waxa laga arkay dhinaca galbeedka markay labada calaamadood dhaceen ayaa mahdigu culimadii waqtiga ee muslimiintii ku yiri calaamadihii aad weydiinayseen waa kuwan dhacay waxayna marxaati ka yihiin in aan ahay mahdigii runta ahaa wuxuuna qoray buug uu ku magacaabay nuurul xaq oo uu ku faahfaahiyay kagana hadlay muhiimadda ay leeyihiin labadan calaamadood ee dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadku dad aad u fara badan
ayaa markay arkeen mucjisadan markay calaamadan arkeen alle u muujiyey mahdiga ku soo biiray jamaacada axmediya markii taariikhda la baaray inay hore u dhaceen dayax iyo qorax madoobaad sidan oo kale waxaa la ogaaday in aanay weligood isku mar dhicin bisha ramadaan weligoodna aanay dhicin iyadoo uu joogo qof ku doodaya inuu yahay mahdi waxaan ognahay in dad fara badan ay ku been abuurteen in ay yihiin mahdi ay yihiin laakiin mucjisadani weligood uma dhicin haddii aad xadiiska u fiirsato rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina limahdina aayatayni macnuhu yahay mahdiga yaga wuxuu leeyahay 2 aayadood rasuulku wuxuu isu nisbeeyey mahdiga runta ah markuu yidhi kaayaga oo laga fahmi karo in waqtigaa ay iman doonaan qaar mahdi sheegan doona laakiin ku been abuurtay wayna dhacday mahdiga mirza qulaam maxamed calayhi salaam ka hor isla waqtigiisii waxaa ku dooday 2 qof inay yihiin mahdi yihiin labadaba waa la dilay mid wuxuu ahaa waxaa la odhan jiray cali محمد وعكسه بحي وطن كإيران كون ستيد بقولي أفرتني وحان لدلي كون ستيد بقولي كونتنكي كخلنا وحوها مهديكي السودان محمد أحمد المهدي وعقول واقعين المهدي هي كون ستيد بقولي تطباطني السقالكي وحان لدلي كون ستيد بقولي ستيدني شنتي وحا isaguna soo baxay Bahaa-ullah oo taabacsan mahdigan muxuu ahaa Iran isagu wuxuu yiri wuxuu ku dooday oo uu yiri waxaan ahay jiritaanka alle ayaan ahay isagana waa la xiray noloshiisina wuxuu ku dhamaystay xabsiga ilaa uu ku dhintay 1892 waad arkaysaa marka kuwa alle ku been abuurta in alle ku ciqaabo dunidan adduunkan alle ku ciqaabo miyuu alle dilay mirza qulaam maxamed calayhi salaam maya maalin walba alle subxaanahu wa tacaala wuxuu sii fidinayaa dacwadiisii inuu yahay imaam mahdi maantana waxaa aaminsan 160 malyan oo qof in ka badan ilaa 200 oo wadan ayaana axmediya si rasmi ah ay uga aasaasan tahay aan isweydiino quraanka ma lagu sheegay dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka waa lagu sheegay alle ayaa inoogu sheegay inay ka mid yihiin calaamadaha qiyaamaha ama calaamadaha aakhir zamanka sida alle yiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وحوي سورة القيامة آياتها تطبع يكوبي 8 وحقل آيادا إنه شاكي calaamadaha qiyaamaha ama calaamadaha aakhir zamanka yirina wakhasafa alqamar ahna marka dayxu madoobaado ee la isu keeno ama la kulmiyo dayaxa iyo qoraxda wa jumica shamsu walqamar sida la isugu keenayo qoraxda iyo dayaxa waa tan xadiiska rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam inuu sheegay aynu sharxay inay ku kulmi doonaan bil ramadaan yani dayaxii iyo qoraxdiiba waxay ku kulmayaan bil ramadaan oo ay labaduba madoobaanayaan
oo uu dhacayaa dayax madoobaad 13 bisha qorax madoobaadna 28 bisha waa tan halka quraanku uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wajma'a ash-shamsu wal qamar waxa la kulmiyay ama la isu keenay dayaxii iyo qoraxdii in badan baad ku arki quraanka barakaysan in Allah inoogu sheegay sida uu inoogu sakhray qoraxda iyo dayaxa iyo inay ka mid yihiin aayadaha Alle waxa kale oo quraanka ku xusan sida ay anfac inoogu leeyihiin ama sida magaranaysa nolosha bini'aadanka ay muxuu ahaa waxtar ugu leeyihiin ma aha wax bini'aadan faragelin karo sidaas awgeed qofna inta uu ku doodo inuu yahay mahdi ma keeni karo saadaashan xadiiska oo ma madoobeyn karo dayaxa iyo qoraxda ma aha wax uu qof bini'aadan u faragelin karo marka ay dhacaan waxa ay marxaati ka yihiin sidan rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay ee u dhacaan waxay marxaati ka yihiin qofka ku dooday intii aanay dhicin inuu mahdi yahay inuu run sheegayo oo mahdigii dhabta ahaa ee rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam inoogu bushaareeyay uu yahay saas awgeed qofkii ay ku jirto qadarin aayadaha ama calaamadaha Alle inuu tuso calaamadani waa mucjiso aad iyo aad u weyn oo marxaati ka ah in Mirza Ghulam Ahmad alayhi salaam uu yahay mahdigii runta ahaa ee rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam inoogu bushaareeyay inuu iman doono aakhir zamanka si uu u nooleeyo diinta islaamka muslimiintana ugu hanuuniyo dariiqa toosan waxa marka ku waajib ah qof kasta oo muslim ah inuu ka war doono oo akhriya kutubta mahdiga kuna soo biro jamaacadiisa sida rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam in amray ay yiri fa idha ra'aytumuhu fabayi'uhu ولو حب على الثلج فإنه خليفة الله المهدي رسولك حديث وحنا وشاغي قفك لا كلمة قفك محوها أوغاده إن مهدي يمي دبعتك استئن أمره حتى هاتو برف كوكورنيو سؤو قارو معنى حبايا ديبك است أمر أو قاد أو بيعك قادو معنى هيدو يهي كبير شماع حديث marka calaamadan dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadku waa mucjiso aad u weyn oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam oo 1300 sano ka hor inoo sii sheegay seen u garanno mahdiga dhabta ahi markuu yimaado waayo seen muxuu ahaa ay ognahay ama seen idin sheegay dad fara badan oo ku been abuuranaya inay mahdi yihiin oo aan ahayn ayaa jira marka calaamadu waa calaamad gaar ah oo lagu garan karo mahdiga runta waayo qofna intuu ku doodo inuu mahdi yahay dayaxa iyo qoraxda ma madoobeyn karo bil Ramadaan oo waliba gaar ahaan ayaamahan gaarka ah ee uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu cayimay ayaamaha kama dhigi karo muxuu ma garanaysaa inay madoobaadaan calaamadan wax hore u dhacay maaha sida xadiiska muxuu ahaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay haddii aan soo koobno waxaan ka soo hadalnay calaamadaha lagu garan karo mahdiga inay ka mid yihiin calaamadinka muxuu ahaa aynu ka soo hadalnay oo ah dayax madoobaad iyo qorax madoobaad in labaduba ay dhacaan bisha Ramadaan inta aan calaamadun aanay dhicin waa inuu jiro qof ku doodaya inuu mahdi yahay waa in aanay hore u dhicin waa in adduunka oo dhan laga wada arkaa
saan idiin sheegayna 1894 waxaa laga arkay dhinaca bariga 1895tiina waxaa laga arkay dhinaca galbeedka. waxaa kaloo aan idiin sheegay in Mirza Ghulam Ahmad calayhi salaam ku dooday inuu yahay mahdi intii aanay calaamadahan aanay dhicin. wuxuu ku dooday inuu mahdi yahay 1891dii 1992 may dhicin 1993 may dhicin 1994 bay dhinaca bariga ay ka dhaceen 1995tiina waxay ka dhaceen dhinaca galbeedka. marka waa mucjiso, waa calaamad iska cad oo muujinaysa Mirza Ghulam Ahmad calayhi salaam inuu yahay mahdigii runta ahaa. waxaan markaa idinku baaqaynaa inaad ku soo biirtaan jamaacadda Axmadiya oo yeeshaan sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam idin amray qof kasta oo muslim markuu yimaado inuu jamaacadda mahdiga uu ku biiro oo uu la fidiyo diinta islaamka. waayo mahdigu wuxuu u yimi inuu nooleeyo diinta islaamka, inuu diinta islaamka meel walba gaarsiiyo, in wixii faham xumo soo gashay oo dhan uu ka maydho. marka qof kasta oo muslim ah waxa uu ku waajib ah inuu ku biiro jamaacadda mahdiga oo u gargaaro. waxaana idinku baaqayaa mar labaad inaad ku soo biirtaan oo aad u timaadaan mahdiga, beecana ka qaadataan, kuna soo biirtaan jamaacadiisa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني.